bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa maalinimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha saddexaad sanada 2020 qodobada aad ku maqli doontaan janalkeena xogwada janaal haddii uu eebar hali ka noqdo waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka oo ka hortimid qodobo laga soo saaray shirweynihii ka dhacay magaalada Garowe rag bas ku dhex kufsaday gabar ardayad ahayd oo ugu dambeyn la daldalay qorshaha ka dambeeya ku burista xildhibaan fiqi ee baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo la ogaaday Turkiga oo Mareykanka u diray gargaar caafimaad qodobadaas iyo qodobo kale ayaa janalkeena xogwada janaal ku daawan doontaan haddii ay tahay daawada markii kuugu horeysay fadlan subscribe inoo saar si aad u heshid wararka aanu halkan soo gelino lana sii wadaag asxaabtaada adigoona u sii shargareynaya waadna ku mahadsan tahay ka mid noqoshada saaxiibada janalka dowladda federaalka ayaa ka hortimid qodobo laga soo saaray shirweynihii ka dhacay magaalada Garowe wafdigii dowladda federaalka ee dhawaan ka qayb galay shirweynihii wadatashiga Puntland ayaa maanta soo saaray warmurtiyeed ay kaga soo horjeesteen qaar ka mid ah qodobo ku jiray warmurtiyeedkii laga soo saaray shirkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa sheegay inuu ugu horeyn soo dhaweynayo go'aankii uu madaxweyne Dani ku aqbalay tagida magaalada Muqdisho wasiir Cawad ayaa xusay in safarkaasi uu wax weyn tari doono maadaama uu Dani kulamo la qaadan doono madaxda ugu sareyso dalka Farmaajo iyo Qare sidoo kale waxa uu bogaadiyay qabashada shirweynaha wadatashiga Puntland oo socday muddo ku siman 3 cisho ah Cawad ayaa si weyn ugu horyimid qodobo ku jiray warmurtiyeedkii shirkaasi laga soo saaray gaar ahaan qaybta sida gaarka afarta ugu fiiqaysa dowladda federaalka wasiirka ayaa waxa uu kale uu sheegay inuu ka xun yahay waxa uu ugu yeeray ereyo xanaf leh oo warmurtiyeedkaasi ku birtilmaameedsaday maamul goboleedyada dalka waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan marnaba ka turjumaynin hadal soo jeedinta iyo doodihii shirka ayuu yiri wasiir Cawad wuxuuna intaasi sii raaciyay waxaan ka xunnahay oo aan rabnaa inaan halkan ka cadeyno ereyadii xanafta lahaa ee warmurtiyeedku ku soo baxay ee waliba loo geystay maamulada kale taas oo qayb ka ahayn ajandihii shirka kuna jirin hadal soo jeedintii wafdiyadii isla markaana ku jirin doodihii shirka warmurtiyeedka dhawaan laga soo saaray shirweynihii wadatashiga Puntland ayaa qayb ka mid ah lagu sheegay in dowladda federaalka ay ka weecatay nidaamka federaaleynta dalka iyadoo lagu sheegay in xubnaha shirweynaha ay ku muujiyeen welwel farangelinta qaawan ee dowladda federaalka ku hayso maamulada dalka dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo qayb galay shirka wadatashiga Puntland ee socday 15 ilaa 17 March annagoo ah wafdiga dowladda federaalka uga soo qayb galay shirka wadatashiga Puntland waxaanu war-saxaafadeedkan u qabanay inaan ku cadeyno arrimahan soo socda waxaan soo dhaweynaynaa go'aanka madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdulaahi Dani uu ku tagayo Muqdisho si uu la kulmo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre si loo xalliyo wixii khilaaf ah oo jira qodobka labaad waxaan madaxweynaha Puntland ku bogaadinaynaa qabashada shirka wadatashiga qodobka saddexaad waxaan ammaan u soo jeedinaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland sida xilkasnimada waxgaradnimada leh ee ay shirka uga qayb qaateen qodobka afraad waxaan soo dhaweynaynaa go'aamadii shirka ee ku saabsanaa midnimada amniga iyo horumarka Puntland qodobka shanaad waxaan diidanahay go'aamada lagu sheegay warmurtiyeedka shirka ka soo baxay qaybta ku saabsan dowladda federaalka oo aan ka tarjumin
dhanka kale rag bas ku dhex kufsaday gabar ardayad ahayd ayaa la daldalay. 4 nin oo dil iyo kufsi u geystay gabar ardayad ah gudaha bas magaalada Delhi sanadkii 2012 ayaa lagu filiyay daldalaad. Akshay Thakur, Vinay Sharma, Pawan Gupta iyo Mukesh Singh waxaa dil toogasho lagu xukumay sanadkii markuu ahaa 2013. Xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Tihar ayaa lagu daldalay xalay. Fulinta xukunka dilka toogashada waa kii ugu horeeyay tan iyo 2015. Gabadha la faruuxmeeyay ayaa maalmo kadib u dhimatay xadgudubka 6 rag oo midkood uu isku dhex dilay xabsiga halka kan kale la sii daayay. Eedeysanihii la sii daayay oo 17 sano jir ahaa ayaa wuxuu xabsiga ku qaatay muddo 3 sano ah sida ay ku soo warantay saxaafadda. Gaboodfalka loo geystay gabadhaas ayaa banaanbaxyo xoogan ka dhaliyay qaybo ka mid ah Hindiya taasoo cadaadiska ku kordhisay dowladda. Narendra Modi, ra'iisul wasaaraha India oo sheegay in cadaaladda ay fushay, ayaa ku adkaystay in la ciqaabi doono ragga caadaystay kufsiga. Hindiya ayaa ka mid ah wadamada caalamka oo ay adag tahay in haweenka ku noolaadaan. 2018 waxaa la diiwaan geliyay in ka badan 33,000 oo kiis oo kufsi ah. qorshaha ka dambeeya ku biirista fiqi ee baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa la shaaciyay. La yaab ayay ku noqotay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Midowga Yurub Axmed Saciid Fiqi uu ka soo dhex muuqday liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed. Dad badan ayaa rumaysan waayay in Fiqi oo xil aad u sareeya u haya qaranka u raadsado xildhibaan maamul goboleed. Hase yeeshee waxaa hadda soo ifbaxaya xog dheeri ah oo ku saabsan sababta uu sidaasi u sameeyay. xog laga helayo ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in qorshaha in Fiqi laga dhigayo afhayeenka baarlamaanka maamulkaas kadib markii meesha laga saaray afhayeenkii hore. Shariif Sheekh Maya ayaa haatan haya xilka gudoomiyaha wuxuuna aad ugu dhawaa maamulkii Shariif Xasan Sheekh Aadan oo iscasilay ka hor doorashadii December 2018. hase yeeshee waxaa iminka xitaa loo diiday inuu xildhibaan ka noqdo oo waxaa ka hor istaagay xukuumadda Soomaaliya. ma jirto shaacin rasmi ah oo ka timid Fiqi oo ku saabsan inuu iska casilay xilka danjiraha EU-da si la mid ah safiirka dalka u fadhiya Belgium-ka. hase yeeshee waxaa la filayaa in dhawaan sidaasi uu sameeyo. dowladda Farmaajo ayaa tan iyo markii ay xafiiska timid bishii February ee sanadkii 2017 waxay dadaal badan gelisay sidii ay gacanta ugu dhigi lahayd maamul goboleedyada. tallaabadaas oo la dhaleeceeyay. badi sharci dejiyaasha ku soo baxay xeer dejinta ayaa ah wajiyo cusub taasoo ka dhigan inay ku yar yihiin xubnihii hore waxaana laga soo buuxiyay taageerayaasha dowladda. si kastaba xitaa haddii Fiqi laga dhigo gudoomiyaha cusub waxaa weli su'aal ay ka taagan tahay mid ka muhiimsan xilkaas iyo kan hadda la filayo inuu ka tago. dowladda Turkiga ayaa gargaar caafimaad u dirtay dalka Mareykanka oo haatan ka mid ah dalalka la daala dhacaya xanuunka coronavirus. gargaarkan ayaa qalab lagu baarayo xanuunka coronavirus oo gaaraya 500,000 oo Turkiga u diray dalka Mareykanka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii xukuumadda Washington ay Ankara ka codsatay in laga caawiyo qalabkaas waxaana arrintan xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga Fahrettin Koca sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mr. Koca ayaa mar uu khudbad ka jeedinayay baarlamaanka wadankaas waxa uu sheegay in ay ku hanwan yihiin sidii loo xoojin lahaa baaritaanka gudaha ee dalka Turkiga. wasiirka ayaa sheegay in maalintii ay qorsheynayaan in ay xanuunka ka baaraan 10,000 ilaa 15,000 oo qof wuxuuna intaa raaciyay in haatan ay baareen dad ka badan 10,000. xanuunka corona ayaa faraba'an ku haya dalal badan oo caalamka ka mid ah waxaana ugu daran dalka Talyaaniga oo dad badan ay ugu dhinteen. xanuunka corona ayaa faraba'an ku haya dalal badan oo caalamka waxaana ugu daran dalka Talyaaniga oo dad badan ay u dhinteen. caabuqa corona ayaa dalka Talyaaniga ku dilay dad ka badan inta uu ku dilay dalalka kale ee caalamka kadib markii maalin kaliya ay dalkaasi ku dhinteen dad gaaraya 427 qof. tirada dhimashada ee dalkaas ayaa haatan maraysa 3,405 qof taasoo ka badan tirada dadka ku dhintay dalka Shiinaha oo halka markii hore uu ka bilowday. dalka Shiinaha ayaa waxaa xanuunkaasi ugu dhintay 3,245 qof balse waxaa su'aal la gelinayaa sax ahaanshaha tiradaas maadaama aysan jirin cid si madax bannaan u xaqiijin karta. dhammaan shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray in ay guryahooda ku nagaadaan inkastoo aysan jirin tallaabooyin ay soo rogtay dowladda
haddana waxaa lasoo sheegayaa in ay jiraan dad weli u dhimanaya xanuunka, waxaana guud ahaan corona caalamka ugu geeriyootay dad gaaraya 9,000 oo qof. dhanka kale dowladda Shiinaha oo ah halka markii hore lagu arkay xanuunka ayaa sheegtay inaysan jirin kiisas cusub oo lagu arkay gudaha dalkaas, balse ay jiraan dad qaba xanuunka oo Shiinaha ugu yimid dibadda. hase yeeshee tirada dadka uu ku dhacay xanuunka ayaa aad uga badan tan Talyaaniga oo dalkaas waxa uu xanuunkaasi haleelay 81,000 oo qof.